أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. iftiin yaraan soo dhigay jirto si ugu iftiimiyo muuqaalka carabiyad wiiga dhigaba maasha Allah. waan salaamayaa wax rabay inaan isra xasuusino arrin soo noqnoqda arrintaasina maanta haweeneydii ku socotaa insha Allah waxaan rajeynayaa inaad yar fahantiin haddii kugu socotana way kugu socotaa haddii kuma socotana dee wax khasbi ma jiro waayo qof walba noloshiisa isaga hoggaan u ah waxa jira haweeney badan oo moodaya guusha kaliya la gaaro inay tahay guurka in la guursado inay tahay oo kaliya ayay moodayaan nolosha dhan guusha laga gaaro inay tahay guurku wuxuu ka mid yahay haddaan oran karno top 3ga guulaha ugu quruxda badan leh uguna muhiimsan nafteena u baahan tahay kaalin buu ka gelayaa top 3ga laakiin maahin guusha kaliya la gaaro sababteena waxayna waxa weeyaan imisaynu aragnay dumar badan oo moodaya guusha kaliya la gaaro inay tahay guur ugu dambeyntii in korta waayahan dambe guurka iska baqtiya nasiib u noqdayba ama ku hagaagi ama ma ku hagaagayo marka way dhacdaa in badan way soo mareen in guurku haddii uu noqon waayo intii qofkani bacdama ay moodaysay in guusha kaliya la gaaro halkan ay tahay markii arrimihii ka kala daataana inuu qofkaasi ku soo haro wax la'aan oo kaamiyaynu aragnay ayagoo calacalaya ayagoo ooyaya ayagoo leh inakan halkanaan gaarsiiyey halkanaan la maray heerkanaan gaarsiiyey heerkan waana la soo maray dhibaatadana la soo maray qof aad nolol wadaagteen oo raalli ka ahayd isagoo marka hore lugeynayay inaad la lugayso birina markuu gaari koray uu gaari wato inaad ku qabsato taraa gaarigan anaa ku korsiiyey maaha san raalli baa kala ahayd qofku nolol baad wada samaysanayseen isagu hadduu heer gaaray oo adigu weli aanad wax la'aan ku soo hadhay inaad isaga canaanato maaha waxba isaga ma ku qabsan kartid waa adiga weeye inaad isweydiiso dhowr su'aalood wax weeyaan way dhacdaa markaa inay wax la'aan ku soo dhacaan haweeneydaasi because guusha kaliya ay targetka ka dhigteen ay xooga saareen guurku ahaa guurkuna saan idin sheegay waqtigan dambe waa iska baqtiyaan si buu noqday ama ku hagaaga ama kuma hagaagayo marka maxaa dhacaya marka aad guurku kaliya aad ka dhigato guusha kaliya la gaarayo waxaa dhacaysa camal kale ma yeelanaysid camalka kaliya yeelanayso wuxuu noqonayaa markaa inanka bad camal ka dhiganaysaa markaad bila camal tahay isagaad kusoo jeesanaysayo waxaad eegaysaa xil uu soo galo xil uu baxo wuxuu weegii hore keenay wuxuu weegan keeni waayo siduu kula hadlayo waxa ka siiya unbaa markaa u fiirsanaysaa laakiin markaad camal leedahay waqti uma haysada qofkan eegto waxa ka siiya qualitygiisunbaa ku muuqanaya marka waa inaad camal yeelato camal samayso guushu waa run guurku waa guulaha ugu quruxda badan ee la gaari karo waa nimcooyinku ilaahay bixiyo waa diinta nuskeega weeyaan nuskii kalun baad u shaqaysanaysaa cibaadadii soonkii salaadii sadaqadii guurka diinta nuskeega waad haysaa marka guurku waa run waa guulaha ugu quruxda badan leh ee ugu muhiimsan ee la gaari karo laakiin maaha guusha kaliya jirta markaa si aad guurkaagaasi aad ugu dadaali karto si qurux badan ugu wadan karto waa inaad nolol yeelan karto waa inaad camal yeelan karto marka hore soo guusha isla fahna muxuu yahay guushu waa wax qalbigaaga ka soo go'ay waxaad ka fikirtay oo qalbiga ka soo go'ay oo ku dhaqaaqday oo ku guuleysatay ugu dambeyntii natiijo waad ka gaadhay halkii aad u baahnayd arrintii gacantaad ku dhigtay matalan waxaad rabtaa inaad luqad barato niyadii ka soo go'day luqadna inaad barato niyadaadii ka timiday wax weeyaan actionkii baad ku dhaqaaqday 2 sano oo ku dhan baad baranaysay shahaadadii baad qaadatay waad ku shaqaysatay shahaadadan qaadanayso waa guul weeyaan guusha kale ku soo xigta waa shaqo ku raadso ku shaqatay ayaduna waa guul marka inaad guulaha kale badan ee jira buuxa ee gaari karto inaad ku mashquusho wuxuu safe garayn karaa in guusha aad ka gaadhay guurka okay marka hadduu guurkani kuu hirgalana alxamdulillah hadduu kuu hirgali waayo inaad cidla ma taagnid cidlo dee waxa weeyaan guulo kalaad haysataa waxyaalo kalood cuskan kartaa jira xataa dhacda haweeney badan oo markay guursadaan markiiba arkay inuu dadku cadow ku yihiin kana igu cadowa kana igu xun
kan reerku iga jejebinaya, kan reerku iga duminaya, qofkan isan igu yahay. waxyaalahaasi ka hor maxaad u arki weyday oo markaad guursatay aad u arkaysaa shaydaanka kaa shakisiinaya. marka waa run noloshaadii hore ruutiinkaagii hore wuu ka duwanaanayaa marka aad qoys noqoto oo dee waxaad waqti ku disho ma raadinaysid waxaad raadin doontaa markaad guursato wax ku anfacaya. waqtigaaga waxaad gelinaysaa wax ku anfacaya, ma gelinaysid waxaad aad waqti ku disho. iminka dee waa marxalad kale, waa nolol kale waxaad gelaysaa yaa oo soo ciyaaro suuqee kuma lihi. laakiin waa inaad run ahaantii camal yeelan karto. camalka waxaad ka raadinaysaa 7 meelood baad ka raadinaysaa, amba 10 meelood, amba 15 meelood, hadba wixii aad xiisayso. arrimaha laakiin waxaad u horeysiisaa inaad camal yeelato ood ka yar mashquulshay inankan. waa in marka la yar kala mashquul, isagu wuu mashquulsan yahay, isagu shaqo ku mashquulsan yahay, wuu imanayaa, wuu cunteynaya, wuu seexanayaa, kubad buu ku mashquulsan yahay, wuu imanayaa, wuu seexanayaa, wuxuu ku mashquulsan yahay asxaabtiisii, faamilkiisii. inankan camal badan buu hayaa. wuxuu gurigan usoo doonanayaa waa nasasho, wuxuu gurigan usoo doonanayaa waa farxad, wuxuu gurigan usoo doonanayaa waa qofku dee timekiisa la sheergarayn karo oo waxaa jira waxyaalo adigu aad u hayso oona dadka kale u haynin. marka gurigan wuxuu usoo doonanayaa oo wax noloshiisa sii carfinaya, sii qurxinaya. marka inankani camal buu already leeyahay, laakiin adigii camal badan ma lihid oon ahayn xaafadda. xaafadii waa run waxaa tahay wasiirkii arrimaha dakhliga, waayo biilkii baa lagu dhiibayayo adaa wax kala habeynaya. waxaa tahay wasiirkii arrimaha gudaha. aqalka waa qasab inaad kala habayso, laakiin shaqada aqalka waa inaad kala nidaamin karto, si yaroo fudud u qabsan karto. marka camal haddaa intaa ka dhigato aday kuu fiican tahay, reerkaagii baad ku qurxisanaysaa. laakiin waa inuu jiri karo camalo kale ood qabsato. camalada maxaan tusaale kaa siin karaa? inaad naftaada caafimaadkayga ka fikirtid. caafimaadka maxaa hoos u rida? waa markaad isbuuqiso, hawsha isku badiso, warwarto, fikirto, hurdadu kaa yaraato. maxaa loo baahan yahay? waa inaad aqalkii nidaam iyo discipline u samayn karto. aqalka shaqadeedu saacad inay kaaga badnaato maaha. haddaa laguu shaqeynaya waaba laguu shaqeeyayo dee shaqaalaabad leedoo lacag baad bishaysiisaa, waa laguu shaqeynaya, waa lagu nadiifinaya, cuntadii baa lagu karnaya. taa haddaad ku jirto walaahi dee anuu wax kaa maqan ma garanayo. laakiin haddaad haddaanad haynin shaqada aqalka nadaafadiisu saacad inay kaaga badan. haddaad 5 qol leedahay 2 samee, 2 kale beri samee, xabadda hadhina maalinta ku xigta. cuntadii sidoo kale saacad inay kaaga badnaan. shaqada aqalku 2 saacadood inay ka badnaataba maaha, haddii kale adaa ku waalan. shaqada guriga horta mid joogsadaba maaha, waana adigu laakiin iska joojisad. waa inaad nidaam u yeeli kartid, waa inaad u yeeli kartid xilligu bilaama xilligu joogsado. marka insha allah wax nidaamso aqalka marka ay tahay shaqadeeda. ciyaalkii bay noqotay. ciyaalku yaraanta haddaana discipline u samayn, markay kugu koraan weynaadaan way ku waalayaan. discipline u samee. ilmaha inta tv ku mashquulinaysid, amba telefoon ku mashquulinaysid, amba tablet ku mashquulinaysid, ku mashquuli ciyaaro. ilaan wixii ilmihi waxaad u baahanta wuxuu ku ciyaaro soo maha. ciyaaro, waxyaalo yaroo la dhisdhiso, waxyaalo la koloqeeyo, kalarada bahalada yar buugag yar lagu dul sameeyo, waxyaalo buugag la akhristo. akhriska ilmuhu yaryahay ma garanaya, laakiin buugag waxaa jira sawiro leh. inaad ilmihii ag fadhiisatood u sheekayso, ilmihii inaad baaskiil usoo iibiso markuu yar weynaado, aqalka hortiisa ku ciyaaro, kubad usoo iibi. yacni wax uu gacanta iyo maskaxdiisa ku shaqayn karo bar ilmihii. ilmaha bar sixnigan uu ku cunteeyo inuu kijada geeyo. waa inaad bari karto sariirtan ku seexday dee kaba daba hagaaji hadhow haddaad doonaysidoo. laakiin ilmuhu markuu soo tooso waa inuu baran karo sariirtiisa inuu geejiyo, maqadad inuu meeshiisa si fiican u dhigo, go-ii si fiican inuu u laalaabo ambuu si fiican u dul dhigo. ilmaha bar isagoo hadhow wax u taraysa, wiil iyo gabdhaba. haddaad inan yar leedahayna bar, inantana bar. inamada haddaa shaqada aqalka la baro, beritoole markuu jaamacad tago, beritoole markuu keligiid kusoo haro, beri markuu guursado xaaskiisu xanuunsanayso ama dakhtar ay ku jirto amba ay umuur tahay, shaaxa isagaa samaysanaya, sandwichka yar furunka waxyaalaha yar fudud isagaa sameysanaya, bariiskii isagaa sameysanaya. inamadana waxbara, waayo raggan laga cabanayo hooyaa soo korisa. ma fahamtay? marka inaad adiga iminka wax bedesho ku dadaal. generationkan maanta weyne ayagu waxyaalihii badnaa ay soo khaldamay ay bedeli karaan. marka inamada bar sariirta loo geejiyo,
bara inamadiina yaryar in hore loo soo heedo oo dibadda una meeraysan waayo intaad adiga una kula joogin dad kale wax kuu soo baraya in hore soo heedo sida gabadhaad hore ugu soo heelaada waa inaad ilmaha yar bartid marka taasi waa topic kale wax weeyaan shaqada aqalka waa inaad adoon cidna dhabarka ka jabinayn haddii gurigan ay dad kale kugula nool yihiin ninba teewaad wax u delegeyn karto muuqaalkii aan ku yar dheeraaday marka taasi waa topic kale insha allah mar kale aan usoo laaban doonaa laakiin tan kale waxa weeyaan inaad camal yeelato luuqado jadiid oo cusub iska baro sira mashquuli ka iska yar mashquuli adigoonan aqalkan baylah ka dhigayn aqalkan aad faraha ka qaadaynin waayo aqalkaaga waa inaad gacanta ku hayso maalintaad lagaa dareemo gurigan inaad kasii jeesatay amba lagaa dareemo gurigan uu baylah ku jiro buuq iyo mashaakil baa ka bilaabmaya maya qof walbaba xaqiisa sii odigaaga xaqiisa sii awlaadaada xaqooga sii gurigan nidaamso nadaafad ka dhigo ya adoo waxaa qabanaya oo si fiican u manage gareynaya haddana camal kale waad yeelan kartaa camalada waxaad gelinaysaa inaad iska akhrisato buugag barosa buugaga loo akhristo bilow way kugu yar adkaan doonta laakiin ha isku badinin page ku bilow markaad page akhrisato page kalaad ku xigsiin 2 baad ka dhigan 3 baad daraarti ka dhigan 4 baad ka dhigan 10 page baad ka dhigan amba habeenkii akhriso amba subaxdii anu khaasatan waxaan kugu talin lahaa habeenkii inaad akhrisato habeenkii gurigu waa kaalmo weeyaan marka ciyaalku kaa seexnaa amba markaad fursad u hesho iska akhriso akhriska buuga waxa lagu bartaa waxaad ku baranaysaa waxyaalo cusub oo badan oo aad ogeyn ayaad ku baranaysaa luuqadaadii baa kusii qurux badnaanaysa ood kusii baranaysaa waxaad ku baranaysaa sida lagu noqdo kaalm okay wuu ku dejinayaa buuga ku dejinayaa buuga waxaa lagu bartaa akhriskiisa aamusnaanta lagu bartaa waxaa lagu bartaa sida loo fikiro maskaxdii baa shaqaynaysa akhrisku maskaxda wuxuu yahay mashiin waa mootor weeyaan wuu dhaqaajiyaa meelo badanoo xirxidhnaa ayuu furfurayaa ma fahamti marka camal ka dhigo inaad buugaga akhrisato okay quraankaaga iska akhriso tasbiixdaada iska samayso camal ka dhigo inaad weligii ugu yaraan 3 maalmood soo lugayso camal ku noqdo waad ka badsan kartaa anuu heer waxaan gaadhay aan maalin kasta soo lugayo camal ka dhigo inaad luuqad cusub barato wax baro tacliin iska baro camal raadso haddaad shaqo tagi karaysid hawsha gurigana ka baxaysid iska shaqo tag ninka ama hadduu halka yahay iska shaqo tag waxay iska soo shaqayso nafta happy ka dhigo haddaanad camal lahayn camal ka dhigo inaad socialize garayso adiga caafimaad kuu tahay anuu waan fahmi waayey dadkan dumarkan markay guursadaan dadkii oo dhan iska soo xirxidhay familkiiba iska xirxidhayaan asxaabtiiba iska xirxidhayaan cidna ma ugu soo galaysaba dee markaadaa isku buuqaya dee afar gidaal baa daawan ninkana wiilkan ku qabana timekun baad u haynde xaguu maray maanta ima eegin maanta imuu arkin maanta ma arag imuu saarin ilamuu hadal sana imuu sameyn isaga baad camal ka dhigan marka inaad socialize garayso aday ku fiican tahay caafimaad ahaan maskaxdaada u fiican tahay marka dadkiina ha iska xirxirin dadka dhibaatada kuu geysanaya waad ka hari kartaa laakiin waa inaad samaysan karto in yar oo kugu filan oo aan dhibaato kuu geysanayn haddaad adigu wax tabayso oo daacad kuwa waad ku soo koobnaan kartaa dadkaasi maxay kuu tarayaan waxay kuu tarayaan inaad soo ziyaaran karto u tagi karto inay ku soo booqan karaan inaadeen saaxiibadaad tiraahdo miyaahe naadi maalmahan kuma eraya soo bax kaale koofiyar ma soo cabinaaye kaal masta soo lugeynanahay qof aad trust garaynayso ood ku kalsoon tahay igna samayso haddaad cid aad weydana iskaba dhaafo laakiin at least qaraabada xiriiri qaraabadu way ku fiican tanaa xiriiriso timekaaga lagu barakeynayaa awlaadaadii baa lagu barakeynayaa caafimaad baad ka helaysaa qof inaad la soo sheekaysato hadalkan kaa soo baxay caafimaad baad ka helaysaa laakiin haddaad dadkii oo dhan iska soo xixidho waa dhibaato marka anu kuma lihi dadka ku dhibaateynaya albaabada u fur may qofkii ku dhibaateynaya waad iska joojin cidna ma soo dhaweysanaysa qof aad isku xuntihiin laakiin dadka kuu wanaagsan xiriirka ha ka goyn la xiriir dadka waa inaad camal yeelan karto ugu dheerada muuqaalka laakiin inaan hablaha u faahfaahiyo waa muhiim because haweeneyda marka wax loo sheego way iska yar xanaajiyaan waqti qaarkood badidooda maaha marka inaan u fasiro farta waaweyn wax ugu sheego waa qasab diklo ka xanaaqayaan xiliina farax baad iska dhaadhicinaysaa maxay xal iska dhaadhicin wala iska dhaadhicin wixii runta waa la isku sheegayaa ayagaba runta waa loo sheegaa nagama xanaaqan xabad baa yar xanaaq kuwaasi waa permis narcissique weeyaan ninku hadduu boodboodo ma aragti uu realitiga iyo xaqa diido
c'est des pervers narcissiques kuwaan layma tusi karo yaa aniga cishaba kolba inaba maalin igu yidhi shukriye buu yidhi cishadana ammaan cishadana soo buufi marka waxa weeyaan waa la isbuufin oo runta la isku sheegi wixii xaqanada waa laga hadlay taasi ceeb ma laha walaashayey inaad camal yeelan karto adigoona reerkaagii dayacayn adigoo qof walba xaqiisii siinaya waa inaad camal yeelan karto timekaaga manage garee gurigaaga time geli naftaada time geli qaraabadaadii time geli diinta time geli wax diintaada iska baro qur-aanka iska baro tajwiidka iska baro xadiisyada qaarkood iska baro dikriga iska xafid qur-aanka xifdi xitaa suuradaha qaar kasoo bilo hoostaada doonaysaan badusha in diinta waqti geli in camal yeelo in spoor soo samee weygii ugu yaraan 3 maalmood soo lugay hadda waad ka badsan kartaa in koofeerka iska tag spaaga tag bishii hal mar isa soo xashxash wallahi soo nafis adigu isku mashquul markii labada qof kala mashquulaan ma aragtay ninkaas waa iska mashquulan kuma kaliidayo meeli saafiradaasiisa bas ka wataa adna camal yeelo markii labada qof yar kala mashquulaan ma aragtay xiise isku helaan ay iskugu soo dhawaadaan way isku xiisoodaan laakiin haddaa la iska dulbato mashaakilkeyga leedahay marka waxa mar walba fadhiya oo hawshii markii aqalka hore u dhamayso bilaa camal oo iska fadhido tv-ga u daawanaysa badiyaa waa dumarka de marka tv-gan badan iska nafisba tv-gaaga programmadada iska daawo laakiin timekaaga manage garee waxyaalo kale ku mashquul markaad haysid hawlo badan ood qabanaysid run ahaantii noloshu way qurux badnaataa noloshu way macaananaysaa way qurux badnaanaysaa isagoona uu kuu soo xisoonaya because waad mashquulsho maanta dhan kama duulaalaadid oo ma wareerinaysid in markaa hala kala mashquulo hala isku soo mashquulo marka waxa weeyaan hala yar kala mashquulo camal hala kala yeesho si hadhow tolo la iskugu mashquuli karo labada qof iskugu mashquuli karaan oo time isku geli karaan markaad adigina waxyaalo soo aragtad wax ku mashquulsho isagina waxyaalo uu soo arka dee asxaabtiisii hawada uu soo qaato kolba wuxuu soo maqlo hadhow marka la isku yimaado waxaa la helayaa wax laga sheekaysto wax laga sheekaysta la helayaa hadalkiibaa xiisa yeelanaya araggiibaa xiisa yeelanaya okay laakiin maanta dhan haddaan waan ka dullaalaadayaa tiraahdid dee wax weeyaan meesha nacayb baa iman kara karah baa iman kara nacayb baa iman kara camal yeelo walaashay naftaada mashquuli wax baro wax iska baro naftaada wax usoo kordhi markaad yarayd waxaad waqtiga ku gubi jirta si aad fan u hesho maanta waqtiga waxaad ku isticmaashaa wax ku anfacaya naftaada anfacaya